waxaan rabaa inaan la hadlo oo kale dadka janaalada qaatay videogaas ama pageska la soo geliyay waan inaga raali gelinayaa inta maarkina oo maxaa la sheeg oo juhdi ah ku bixiseen maadaama qofka bini'aadanka juhdi markuu bixiyo waxa la maasan tahay juhdiga bixisay marka waa nigam oo ku maadsantihiin juhdiga ku bixiseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walakin liibaan cala cilmi janaka daawanaysid oo liiba official walaal daan nuucsta janak subscribe gari hadda doorno joogto welcome back to another video qalkan waxaan uga hadli rabaa muuqaal ka duwan sida ciwaadka aad ku soo aragteenba marka koowaad waxaa rabaa walaasheeda sama inaan muuqaalkan raaligelin buuxda ku siiyo iyada si gooni waa u wacay oo private ku raaligelinayo haddana waxaa rabaa si public ah inaan u raaligeliyo mar labaad marka waxaan leeyahay boqolkiiba boqol ama boqolkiiba 200 intii qof bilaadan ah la raaligelin karo in ka badan ayaa ku raaligelinayaa iga raali noqo qofka bilaadanka uu qaldami karaa qaladkana muxuu u dhaca lama dheer see loo xaliyaa lahaa anigana qof bilaadan ahay qaladku iga dhici karaa sida hadda aaba taaganahay qaladkaas uu iga dhacay marka shaydaan iyo maalikna nafne waa dareemi kartaan marka maqaldamana waa ilaahay qof kasto bilaadan qalad uu ka dhici karaa marka aniga waxaan ku leeyahay iga raali noqo waxa ka raali gelinayaa muuqaalka oo codka ka duubay oo maalikna social media soo dhigay iyo muuqaal kastaba adaa ugu hadlayo marka waxa ku leeyahay kun iyo koo jerbo iga raali noqo horta waxaan u mahad celinayaa familkeyga iyo asxaabteeda iyo maxaa la maslaxbo iyo intii ka qayb qaadatay inay maalikna gartaan gasho ama barnaamijkan soo xaliso ama intii igu dhiirigelisay inay maalikna barnaamijkan oo maalikna ka hakado ama raaligelin aan ka bixiyo ama oo barnaamijkan aan soo xiro maadaama barnaamijkan barnaamij halis uu ahaa yani ama wax kasta oo maalikna qoorta la gali karo that's why oo ugu mahad celinaa qof walba oo ka qayb qaatay barnaamijkan marka waxaan leeyahay horta problemada iiga imaado way badan yihiin ama family ha noqoto ama asxaab ha noqoto mase yani waa dareemi kartaan markaad wax qalad samaysid qof walba ayaa ku dhahay liibaan wax qaldan samaysay liibaan waxa ma fiicno qof dadka ugu dhawaa ku dhahay haba sheegin dadka aan ku dhaweyn sida dadka commentiga waa aragteen commentiyada yani qof walba oo commentigaas fiiriyo commentiyada dhan aniga lagu caana waxa arkay 1600 miya ama 1000 ka badan 700 meelaas camal kulli anay caanaya wax hooyadii caayo wax waalidkay wada caayo wax isirkayga caayo wax ii gafo anyway maadaama waa dareemi karaa qofka gabar maanta u gafo yani in dadka dhan ay ka soo horjeesanayaan that's why commentidaas inta iga soo horjeestay maadaama gabar Soomaaliyeed aan qalad u geystay ama u gafay marka waani caafiyay intii caysay ama inta wax ii gaftay ama inta qalad dhahday anigana waxaan niga codsanayaa inay iska caafisiin wax walbo ama video maalikina ama naxtin ha noqoto ama emotionkin oo bedelay waan niga raali gelinayaa waxaan jeclaan lahaa inay iga caafisiin insha Allah waa dareemi kartaan marka aragtid inta qofku daawatay iyo inta qofku caysay yani in maalikina dad badan markay ku caayaan yani waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay anigana markaan arkay waalidkayga oo markasta loo gafaayay shalab waxaa ka urtay waxay waalidkayga oo la caayay ama waalidkayga oo si xun loo markasta loo afgaadinay wixii aan arkayna waxay tahay hadana waalidkayga oo markina oo ka badan maxaa la sheeg kun qof inay waalidkayga u afgafto marka insha Allah hadda qalbiyan horta wallahi waan caafiyay in qof kasta oo meeshan ku jiro ama qof walba oo daawan doon videogan waxaan mahadnaq gaar ah aan siinayaa qof walba oo ka qayb qaatay in maanta aniga meeshan aan soo fadhiisto si gaar ah walaakiin maslax official maslax abdi waxaan ugu mahadnaqayaa maadaama uu ka qayb qaatay in maanta markina oo ka shaqeeyay in aan raaligelin bixiyo ama videodaas ama meesha ka saaro asiga ayaa usoo maadaama oo ila hadlay yani maanta yani oo ila hadlay waliba si walaalkii iga weyn camal ama si maanta markina qof iga weyn aan ixtiraamayo asigana oo ixtiraamayo that's why aan videogaas meesha aan ugu saaray maadaama u noqotay sabab inaan inta soo fadhiisto maanta aan raaligelin bixiyo ama videos ka bixiyo aan gareysto inaan qaldanahay oo video gabar walaashay maanta aan ka soo doobay ama cod aan ka doobay meeshaas aan soo geliyo qaladkaas aan qaatay maanta adiga ayaa sabab maadaama ay igala hadashay qofka bini'aadankana marka la hadlo waa inuu qaataa qaladkiisa oo la dhahay liibaan maanta waa qaldanta hadii la yidhaho yani waxaan jeclahay inaan qaladkayga qaato haddii laakiin aan qaldanayn laakiin in qaladka dusha laga saaro ma jecli that's why maadaama qaladkayga ii sheegay ama inaan qaldanay ii sheegay
waa qaatay qaladkayga walaal oo mahadsan tahay maslax sidoo kale familkayga iyo asxaabteeda inta ii dhow oo maanta ka qayb qaadatay ayagana waa ku mahadsantihiin waan inaga raaligelinayaa inta maarkina oo maxaa la sheeg oo juhdi ku bixiseen maadaama qofka bini'aadanka juhdi markuu bixiyo waxaa la waa mahadsan tahay juhdiga bixisay marka waa nigama oo ku mahadsantihiin juhdiga ku bixiseen waxaan rabaa inaan la hadlo oo kale dadka janaalada qaatay videogaas ama pageska la soo geliyay waxaan rabaa inaan dhaho ka bixiya videodaas janaaladiina please and please waa iga codsi marabi qaladka aan shalay galay inaa iga daba gashin that's why videodaas ka bixiya qofka bini'aadanka wuu qaldamaa qaladkiisana haddoo kusoo laabto waxaa fiican in maarkin oo lala gareysto qaladkiisa inuu qaldamay qofkaas inuu ogaaday haddii laakiin maarkin oo adigoo iska dhigaysid inaa wax fiican raadinaysid ama wanaag raadinaysid haddii oo maarkin oo weli janaalkaaga oo ku jiro videogii oo qofka qaldamana oo maarkin oo gareystay inuu ka bixiyo oo qaladka raaligelin ka bixiyay haddii adi weli gareystid inaad videogaas aad janaalkaaga ku siiyastid ana waxay la tahay yani qof yani wanaag raadinaya ma tiidi waxaa tahay qof maarkin oo xumaan raadinaya oo maarkin ama money raadinaya bas marka that's why waxaa rabaa inaa ka bixisiin codsi iga tahay haddii macquul tahay codsiga iga tixgelinaysiin anyway videogaas waxaa ugu talagalay maanta intaas inaan nila wadaago raaligelintaas gabadha walaashayne waa raaligeliyey sida hore nigu sheegay mar labaad aan nii sheegayo ayada raali iga tahay marka adinkana waxaa jeclaalahay marka inaa iska ka cafis aniga waan ii cafiyey qalbigiina nii fur adinkana waxaa jeclaalahay inaa qalbigiina ii furtiin oo iska ka cafisiin marka qof walba oo videos ka xumaaday ama maarkina shucuurtiisa bedelay ama dareenkiisa maarkina oo bedelay waxaan jeclaalahay inuu iska ka cafiyo anigana waan ii cafiyey inta qof isoo caaysa ama inta qof isoo afligaadaysa insha Allah video aan igu talagalin intaas iyo nagu egahay videogan haddaad ka heshay like inoo saar haddaad nagu cusub tahay subscribe inoo saar channelka video xig inta gaari doono waxa inoo balan insha Allah sidaas caafimaad